وكا دستوركي شرعي دالكني دربة بقادي arrimaha bulshada gaar ahaan gudida nabadgelyada ee degmada Koobiye soo dekamay kuwaas oo si wanaagsan oo habsami leh uga soo shaqeeyay barnaamijkeenan maanta aynu fadhino wana xil saarnay waxaan mar labaad u mahad celinayaa wasaaradda dastuurka oo ugu horeeyay wasiirku kuwaas oo si fiican oo ilaa xada aanan wali hadda ka hor aan arag wax dastuurkii oo ah laf dhabartii dalka oo aanan hadda ka hor arag wax soo gaarsiiya daafaha dadka loo baahan yahay inay ku dhaqmaan sharciyadooda ama dastuurka kaasoo laf dhabarteeniya وكا دستوركي شرعي دالكني دربة بقادي laakiin waxana keenay waxa weeyaan bini aadamku marka hore uu simay annaasu sawaasiyun kaasnaad ilmash haddana wuxuu samaystay hoggaan iyo nidaam oo isku maamulo ilaa madaxweyne ilaa gudoomiye degmo nidaamkaasi waa mid adduunka oo dhan uu ku dhaqmo waxaan leenahay shuruuc sidoo kale xuquuq aad adigu leedahay ku ilaalinaya mid kalena qof kale oo muwaadin kale inaanad ku xadgudbinna ka ilaalinaya haddaba si aad adigu u ogaato ka aad tahay iyo waxaad xaq u leedahay iyo waxa adiga xaq lagugu leeyahay waxay ku xiran tahay inaad barato buugga haysataan ah dastuurka 130 qodob buu ka kooban yahay qodob waliba uu ku quseeyaa waxa laga yaabaa maanta ka hor nasiib aydan u helin inaad barataan laakiin dhismaha dawladnimo ayaa maalinba talaabo in la qaada wax badan bayn ka soo gudubnay intiina waaweyn waxa garanaysaan markii Hargeysa lagu soo noqday halkii laga bilaabay iyo halkii maanta joogto wixii si noolaadana waxyaabo badan oo kala horumar ah baynu insha Allah gaari doonaa waxa kale oo iyaduna dheer xukuumadan maanta joogtay ee uu hogaaminayo madaxweynaha Muuse Biixi dadkii doortay baati waxyaabihii lagu doortay waxa kamid ahaa in shuruucdu lagu dhaqmi doono sharcigu sareyn doono si uu sharcigu u sareeyo waa in la bartaa waayo wax aan laba aqoonin ma sareysiin kartid sidaa daraadeed intiinana maanta dastuurkan 130 qodob barta ayaa bari ka tala bixin kara qof ku khaldamay ka joojin kara mid xuquuq kaga maqan tahay u doodi karo u dooni kara sidaa daraadeed barashada aqoonta iyo wax kororsigu uu ka qaalisan yahay wax kasta waayo cilmigu wax kasta waa cilmiguna ambiyadu ma deelo soo waxyooda al-ilmu bita'allum cilmigu waa barasho ma aha wax deesaakeen imanaya intiina maanta marka koorska dhameysaan waxaan rajaynayaa maalintii ay bilaabaysan iyo maalinta insha Allah uu dhamaan doono in farq weyn u dhaxayo حتى دسمها الدولة النمو وحويان الدستور كان نوقيحي وحقران دونتان قضبضا أما الدولة حتى سيدة وضع شقيصه قولها حير ديشنتا البرلمانكا قولها حكومة قولها قرصوركا وحقران يسان دمان سيدة الله محانا سيدة يسيقو حرين سيدة الله وضع شقيصه وحبضان با محانا سيدة وحلوات دورته وكا دستوركي شرعي دالكني دربة بقادي